magaalada Hargeysa ragga ayuun baa lagu yaqaan ciyaarta kubadda cagta balse taasi bedelkeeda waxa jirta gabdho iyaguna ciyaara sababta ugu weyn ay u ciyaaraan ayaa inay la dagaalamaan inuu kordho miisaanka jirkoodu Amuun Aadan Ismaaciil waa maamulka guud ee garoonka Ubax waxay ka waramaysaa ujeedada ay u furtay garoonkani magacaygu walaal waa Amuun Aadan Ismaaciil waxaan nahay maamulka guud ee garoonka run ahaantii garoonkan waxa asaaskiisa ama fikirkiisa u horeeyay lahaa walaashayga weyn oo furtay run ahaantii sababihii ugu waaweynaa ee u furtayna waxa kamid ahaa in aanay habluhu haysan saaxad ama garoomo ama meelaha isugu yimaadaan sida ragoo kale inay aanay haysan habluhu meelaha ay khibradahooda dhinaca sportka ay ku soo bandhigaan inay jirin in horta baahi wadankii ka jirtay ay laftigeedu bay u furtay run ahaantii sport marka la leeyahay waxaan wada garanaynaa waxa lagu ciyaaro kulli xijaab lagu ciyaari maayo marka garoonkani waxa uu u suurta geliyaa hablaha inuu noqdo safe space ama meel maxaa la dhahaa amniga oo ay habluhu ku ciyaaran karaan dharkooda sportka lagu talagalay inay ku ciyaaraan aanay waqtigoodana ku qaadan karaan security ahaan iyo maxaa la dhahaa safety ahaan labadaba inay habluhu ay u yihiin meesha kaliya ee ay had iyo jeer ay laftooda ku aaminaan marka bulshada la joogno waxaanu garanaynaa in hablaha Soomaalida ama muslimku in markasta ay ahaadaan dumar maxaa la dhaahdaa run ahaantii aan markasta jirkooda banaanka u soo dhigi karin marka maadaama hablihii jecel yihiin inay sport ama ciyaaraha ciyaaraan waa garoon u aamina in ay nantu ku ciyaarto habka loogu talagalay ama qalabka loogu talagalay gudaha ama sportka lagu ciyaaro qabadihii ugu waaweyn horta waxa weeye in aanay bulshadu u nugleen ama qaybta dumarka nidhaahday in ay fitnesska ama aynu nidhaahno ciyaaraha inay yihiin qayb nolosha kamid ah marka run ahaantii wacyigelinta inaan dumarka wacyigelino aan nidhaahno yani inay gabadhu caafimaadkeeda kaliya cunto maaha inay jirkeeda dhistaan inay muhiim tahay Marwa Mawlid Cabdillaahi waxay ka mid tahay tababarayaasha garoonkani waxay qabtaa in hablo la tababaro inay tahay wax aad u muhiim ah waxaan hawlahan qabana waxa kamid ah marka laba nooc baan tababarnaa ama noocna waa dad iska riday weight noocna waa dad doonay xirfad kubadda inay kor u qaadaan marka horta garoonka waxaan ku qabanaa aerobics waa lagu ciyaaraa orod baa la sameeyaa kubadda cagta waa lagu ciyaaraa saddexda hab oo lagu shaqeynaa markaan ka hadlayo xagga kubadda cagta markaan doono inaan tababaro ama aan sameeyno marka koowaad waxaan sameeynaa alamiitas oo loo yaqaan wiilashu ay sameeyaan alamiitayna waa la ordaa maxaa marka la ordo warming up la sameeyo la kulaado marka kubadda la ciyaara runtii hablo la tababaro wax aad u fiican oo waa hablo meel iskugu yimid oo kaliya kuma tababarno kubaddu wax kasta waa la kala faa'iideysanayaa xog baa la helayaa yani network badan baa ayaa la helayaa markii hablo la tababaro dadna waxay leedahay wax aad u qiimo badan bay leedahay higsigan leeyna wax weeyaan heer ka gaara coachimada inaan noqdo ayaan doonayay inaan mustaqbalka insha Allah noqdo Ayaan Cabdillaahi Cali waxay ka ciyaartaa nambarka 9aad muddo 3 bilood oo garoonkani ka ciyaaraysay si waqti xaadirkan waxay rajaynaysaa inay meel sare ka gaadho kubadda cagta magacaygu waa Ayaan Cabdillaahi Cali wallahi garoonka waxyaabo badan ma ka faa'iiday haday noqoto taageero haday noqoto yani shacbiyad badan oo markii halkaas soo fadhiyaan aan ciyaarta la soo geliyo amba aan ciyaarayo yani aad dhiirigeliya shabagiyada marka qaar ka soo fuulo waayo weerar ban ka ciyaara markaan gool dhaliyo kale shabagiyada la soo fuulo maxay wallahi alxamdulillah kooxdayda ubaxa aadaan u salaamay iyagana oo iyaguna markaan maqanahay yani in badan soo garaaca maxaa ku helay koob baa la qabanaya amba tartan baa socday sidii maalintii loo tartankii Itoobiyaanka Carabta iyo Soomaalida alxamdulillah horta xaalka soo la taagan yahay Ilaahay baa loo mahadnaqaa duu soo qoreen oo ah in Djibouti hablo looga baahan yahay Djibouti la ciyaaro kal Djibouti la geeyo insha Allah deebaana waxaan rajaynaynaa wadamo kale oo Afrika iyo Asia aan ka soo ciyaaro noqdo qof magac ku leh iyadoo asturan kubaddeeda cagta ku asturan meel asturan ku ciyaaraysa haddii la dhiiri galiyo garoomada noocan oo kale waxa fududaan doontaa in hablo badan ku soo hirtaan